محمد عبد الله السراد عمر warkaasi civil aviation Kenya waxay faafiyeen war ay ku soo saareen wax la yiraahdo notan ay ku soo saareen ay sheegayaan in diyaaradaha Soomaaliya ka imaanaya sida tooska ah u tagi jiray Nairobi ay soo mari doonaan Dubai Karaal noqdo wajeer warkaasi nala soo xiriireen way noo sheegeen kadibna waxay ku soo saareen notan ay ku soo saareen oo hadda official ah ilaa iyo hadda sababtu nalooga sheegay kulay hadda wada hadal ayaa inoo socda baaritaan ayaa socda sababta kaliftay sida aad la socotiin airportkeena Muqdisho wuxuu amnigiisa iyo dhinac kasta ka sareeya airportada kale sabab hadda aan garanayno oo cad oo go'aankaasi ku gaareen runtii ma garanayno marka iyaga ayaan ka warsugeynaa waxaan hubnaa oo xaqiiq ah sabab amni xawayaraatay inaynan ahayn oo sababo kale ay noqon karta ayaa suuragal ah marka ma doonayno inaan ka hordhacno insha Allah taala iyaga ayaan ka warsugeynaa in ay noo soo gudbiyaan sababta arrintaasi markii aan helnay si official ah loo soo saaray in diyaaraduhu ay mari doonaan wajeer waxaan la xiriirnay dhammaan diyaaradaha u socday Nairobi ee sida tooska ah u tagi jiray diyaaraduhu waxay kala yihiin laba nooc diyaarado schedule ah oo loogu talagalay rakaabka qaado oo maalin kasta ama mararka qaarkood taga Nairobi iyo diyaarado markii hore sii mari jiray oo wajeer sii mari jiray sida kuwa UN oo kale marka kuwii tooska u tagi jiray schedule flights ahaa waa la inform gareeyay waa loo sheegay way haystaan information-ka way ogyihiin passengers ka raaci lahaa dadka raaci lahaa diyaaradaha naftooda ayaa ogeysiinaya iyaga ayaa nabartooda haysta oo telefoon ku wacay oo sii sheegay Dubai Karaal marka aan hubsano in si rasmi ah ay u joojiyeen sida hadda ay soo saareen iyo sababaha ay u joojiyeen iyo ujeedada ka dambeysay iyo waxyaabaha ay rabaan in aan sameeyo wada hadalkeena oo furmo ayaan arrintaas insha Allah taala go'aan ka gaari doonaa ugu dambeyntii dawladda Kenya ayaa ku adkaysatay in la iyo amar dambe aysan ka soo degi doonin diyaaradaha ka soo duula Soomaaliya magaalada Wajeer oo ahayd halka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen inay ka degaan diyaaradaha ka soo kicitama magaalada Muqdisho ka hor inta aanay u duulin goobaha kale ee ay dunida kaga wajahan yihiin